wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in warbixintii dhanka ammaanka hay'adda ee maalintii shalay ka soo baxday wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Britain oo ugu baaqaysay muwaadiniinteedu inaanay u safrin Soomaaliland isla markaasina kuwa jooga ay ka baxaan sabab la xiriira xaaladda ammaanku inaanay ahay mid ka turjumaysa xaqiiqda ka jirta dhulkani. Wallahi dawladda Ingiriiska iyo dawladaha kaleba waxaan doonaynaa inaan mar kale iyo mar kaleba u cadeyno annagu waxaanu joognaa dalkayagii oo xor ah oo nabad ah waxaanu joognaa dalkayagii oo xor ah oo nabad ah oo nidaamka uu haysta ee uu ku nool yahayna nidaamka kala dambeyntu ay jirto uu yahay nidaamka sharcigu uu sareeyo uu yahay nidaam qorigu taliya aanu ahayn meel fawda ka jirta maaha dalkayagu waa meeshaasi qofku ilaahay ka sakow nabadda ku nool yahay dadkiisana uu la nool yahay dawladnimaduna ay ka jirto waxaan cadeynaynaa oo kale nimanka Ingiriiska dawladda Ingiriiska iyo kuwa kale marar fara badan waxa soo kale dhawaaq noocaas oo kala sheega xogta ay ka hayaan Soomaaliland waa xog u xaqiijinaysa waxa ay sheegayaan inaanu runahayn. warbixintani ka soo baxday xafiiska dawladda waddanka Britain u qaabilsan amuraha dibadda iyo barwaaqa sooranka ayaa waxa ay ka digaysay weerar argagixisay iyo afduub ka dhici kara Soomaaliland iyadoo inta badan warbixinta loo daliishaday qaraxyo ka dhacay waqtiyadani dambe magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.